waxaa magaalada muqdisho maanta soo gaaray jenaraal abuukar warsame xuud oo si weyn uga soo horjeeday habka loo dhisay maamulka hirshabelle oo uu heliyey taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed warsame tahliil biixi iyo saraakiil kale. wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo xubno kale, waxaana safarkiisa muqdisho ee ka dambeysay kadib wadahadallo ay isafgarad ah oo dhex maray jenaraal xuud iyo taliyaha ciidanka dhulka. jenaraal abuukar warsame xuud oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay u tanaasuleen dadka iyo inuusan qaranka soomaaliyeed burburin maadaama lacag qaranka uu bixiyey ay wax ku barteen. waxa uu sheegay in ujeedka safarkiisa muqdisho uu yahay mid uu ku baadigoobayo xuquuq ka maqan dadka reer hirshabelle gaar ahaan gobolka hiiraan. waxaan u soo baxay ay tahay wixii naga maqnaa ama xuquuqdii naga maqneed inaan baadigoobo meel kasta ay ku jirtana inaan ka keeno. taas waa ballan horaan ballantaa u galnay, haddana sidii bay iga tahay. dadka la boodboodayo wararka waxaan leeyahay iska daayo warxumatashiilka, dadka yaan la isku dilin, dadka wanaag hala tuso, nabad iyo wanaag wax ka fiican ma jiraan. intaas kadib waxaan leeyahay doorashada dalka ka dhacaysa waa inay si habsami ah oo xusmad leh aga dhacdaa gobolka hiiraan. waa in aan lagu dagaalamin buuqna uuna ka dhicin. waxaa dan u ah dadka doorasho inay ka dhacdo gobolka. jenaraal maxamed warsame tahliil biixi ayaa dhankiisa u mahad celiyey dadkii ka shaqeeyey inay isku soo dhowaadaan dowladda soomaaliya iyo jenaraal xuud, isagoo ku ammaanay jenaraal xuud sida uu ku aqbalay guusha la gaaray. walaalkay jenaraal abuukar warsame xuud oo runtii guushan iyo maslaxadan iyo nabadan furow ah, asaga iyo walaalaha la socda, saaxiibada la socda, iyo intii aan ka soo tagnay oo aan xagga uga soo tagnayba. waa mahadsantihiin inaad nabadda gobolka hiiraan iyo midda ummadda soomaaliyeedba aad furo u noqotaan. waxaan kale u mahad celinahayaa ilaahay baan u mahad celinahayaa mar walbana mahadda iskale oo guushaas iyo maslaxadaas ummaddayada garansiiyey na waafajiyey inaan qaadanno. waxaan u mahad celinahayaa mas-uuliyiintii kala duwanaa ee gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne joogay oo nala shaqeeyey oo na soo dhoweeyey, wax nala qabtay, anuuna magacyadooda kala qaadqaadin. aad baan ugu mahad celinahayaa. sidoo kale isimadii iyo nabadoonnada uu ugu weyn yahay ugaas yuusuf, ugaas xasan, ugaas khaliif, ugaas rooble, ugaas muumin, ugaas warfaa iyo nabadoonnadii nala shaqeeyey ee nabadda nagala shaqeeyeyna aad baan ugu mahad celinahayaa. ganacsatada nala shaqeeyeyna waa u mahad celinahayaa. saraakiishana soo dhoweysay waa u mahad celinahayaa. waxaan halkaan si gaara uga xusahayaa jenaraal tawane oo runtii garabkayga taagan, qaybna ka qaatay nabaddan iyo hawsha aan hayno. la-aantiisna wax badan ay naga hallaabi lahaayeen. jenaraal tawane aad baad u mahadsan tahay. saraakiishana soo dhoweysay dhammaantiinna waa idin salaamahaya, waa mahadsantihiin. ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay ilaahay waxaan idinkaga baryaynaa in ilaahay nabad xasisha idin siiya meelaad joogtaanba.